xaashiyaha xasiibka guud ee xafiisyada hay'adaha dawladda qaarkood loo soo idmay iyo kuwa saaran miiska madaxweynaha Soomaaliland ee la xiriira isku shandhaynta aan wali curan oo lagu daray warqadaha uu jabiyaraha ku hayay daarood isugeyntooda waxa ka dhashay inuu kursiga ka boodo mas'uul hore ugu wactamay in siyaasad ahaan aan isaga laga dulboodi karin adeega bulsho iyo siyaasi aan qarsan aragtida taageerada xisbiga uu ka tirsan yahay ayaa muddo 9 sano ah kadib baneeyay xafiiskii uu joogay kaliya kama uu tagin shaqada wuxuu sareebay weydiimo u baahan warcelin oo xukuumadda uu uga tagay iyo kuwa ay tahay in isaga laga warsado warbixintan waxaynu ku eegaynaa mas'uulkii labaad ee shaqada dawladda ka taga muddo 1 sano ah sababaha uu isu rusqeeyay eedaha uu xukuumadda madaxweynaha u jeediyay iyo si guud weydiinta hay'adaha dawladdu ay ka sameeyeen ee la xiriidha hay'adda hufan xaashi ka kooban 4 bog oo qoray maaliyihii hore ee wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayuu shalay si lama filaan ah ugu xusay inuu baneeyay shaqadii uu hayay bulshada magaalada Hargeysa kadib ku dhawaad 10 sano oo uu xilkan hayay ka hor iscasalaadiisa waxa uu ku tiraabay arar dheer oo isugu jirtay wax qabadkiisii muddadii uu joogay xafiiska rajada in caasimaddu hesho biyo ku filan oo nadiif ah iyo xeerarka loo buriyay in bulshadu ay biyo ka geegaan waxa uu korka xadiyay arrimaha ku galifay inuu kursiga baneeyo iyo isku jin uu sheegay inuu kala kulmay gudaha xukuumadda arrimaha xusay waxa kamid ah in wasaaradda maaliyaddu ay jatay cashuur dhaafkii shidaalka ee wakaaladda biyaha loo ogolaaday xilliga ay joogtay Allah u naxariistay xukuumadda madaxweyne Silaanyo iyadoo uu sheegay in wakaaladdu ay xilligan wajahayso culaysa dhaqaale oo waaweyn oo kaga imanaya mashaariicda ay gacanta ku hayso in kabkii biyaha ee goobaha cibaadada loo isticmaalo oo qayb yar ka ahayd sida uu sheegay culayska ay goobahaasi ku hayaan isticmaalka biyaha isna laga wareejiyay wakaaladda isla markaasina loo wareejiyay meel kale iyo in qoys kale dhulka uu ku fadhiyo dhismaha biyo xidhanka weyn ee kala qoray laga carqaladeeyay magdhowgii ay xaq u lahaayeen kasoo qodobadaas oo uu ku tilmaamay curyaamin shaqo Daarood waxa uu farta ku guday mas'uuliyiin sare oo teer dhaxad u ah shaqada xukuumadda kuwaas oo uu sheegay inay soo hortaag iyo carqalad ku sameeyeen shaqada biyo ballaarinta caasimadda ee wakaaladdu ay gacanta ku hayso ma magac dhabin wasaaradaha iyo wasiirada uu qoonsaday wuxuu sheegay in ujeedadu ay tahay in isaga la seeteeyo kama tagin wax qabadkiisa wuxuu ku faaray in wakaaladdu ay la wareegtay shaqadii biyo ballaarinta caasimadda oo markii hore ay hay'ado gaar ah gacanta ku hayeen in la dhameystiray mashruuca weyn ee biyo xidhanka kal qoray in la qoday in ka badan 7 ceel oo hor leh iyo in la keenay dhammaan qalabkii mashiinada dabka iyo dhoomihii biyaha ka hor dhameystirka isku xidhka ceelasha biyaha ee Hargeysa kasoo iscasilaada maareeye Maxamed Cali Daarood dhamaadkii bishii hore ayaa xafiiska xisaabiyaha guud ee Soomaaliland waxa uu xisaabiyaal idman u magacaabay hay'ado ay ku jirto tan u maamulo mas'uulkan shaqada ka tagay xilligaasi waxa uu Daarood warbaahinta ka sheegay in aanay suurtagal ahayn isla markaasina aanu aqbalayn qalinka oo la yeesho wuxuu dagaal adag ka galay sidii uu arrintaasi isu hortaag ugu sameyn lahaa anuuna madaxweynaha shaqaan isku baranay siyaasadda iskumaana baran siyaasadda waan ka soo horjeeday oo waa la wadaa laakiin madaxweynuhu fursad buu siiyay ballanqaadkii koobaad aanu sameynayna kal qoray buu ahaa isaguna waa kii tagay sharci ahaan aragtiyo isku lidah ayay hay'adaha loo magacaabay xisaabiyaasha idman ay uga falceliyeen hulaab xumo iyo xisaab celintay tahayba xanaftii ka dhalatay xasiibka guud oo maalmihii la soo dhaafay ka dhaxugmaysay qaar ka mid ah xafiisyada hay'adaha dawladda waxa ay keentay in mas'uulkii ugu horeysay uu shaqada baneeyo hanti dhowraha guud ee Soomaaliland oo dhawaan isna ka hadlayay mas'uuliyiin magaalada Burco lagu xidhay eeday wax taamarin wuxuu isna ku goodiyay inuu hanti dhowrayaal idman u magacaabi doono xafiisyada iyo hay'adaha dalka ee ay hufnaan la'aanta ku tuhmayaan arrintan ma aha mid hadda dhalatay si guud Soomaaliland xafiisyada qabta lacagaha adag waxa lagu godaa farta laakiin wali ma dhicin mas'uuliyiin lagu helay musuq iyo cadeymo toos ah oo xafiiska hanti dhowraha guud uu sharciga la tigsaday taas oo dhalinaysa weydiimo ay ka mid yihiin halkee ayuu musuqu ka bilowdaa xageese ayuu ku dhamaadaa maadaama oo dhaliisho ay dhammaan hay'adaha dawladda wada sintay kuwaas oo ay ku jiraan xafiisyada u xil saaran dabagalka iyo ilaalinta hantida dadweynaha Daarood waa ninkii labaad ee qalin madaxweyne ku magacaaban oo ka taga shaqada uu qaranka u hayay muddo 1 sano gudaheeda waxa isna shaqada ka tagay wasiirkii warfaafinta ee Soomaaliland isagoo si lamid ah maareeye Daarood ugu eedeeyay xukuumadda inuu waayay wada shaqayntii uga baahnaa xafiisyada hay'adaha dawladda Daarood wala uu soo maamulay hay'ad qabata adeeg bulsho oo aan xira iyo xisbi gaar ah lahayn haddana waxa uu ahaa mas'uuliyiinta ku dhaxmilmay siyaasadda kama uu gaban jirin inuu taageero oo uu la shaqeeyo xisbiga kulmiye oo ilaa hadda oo mucaarad uu yahay uu ka tirsan yahay olole laxaad leh ayuu qaybtiisa ka qaatay doorashadii la soo dhaafay ee madaxtooyada ee 2024 waxaa lagu xasuustaa inuu si toos ah u abaari jiray naqdinta siyaasiyiintii mucaaradka ahaa xilligii uu talinayay xisbiga kulmiye kuwaas oo iminka ah xubnaha xukuumadda ee wada shaqayntooda uu ka caagay saacad kasta
waxaa la fili karayay in mas-uulkan uu xilkiisa waayo maadaama uu hadda ka tirsan yahay xisbi mucaarid ah laakiin waxaa muuqata in muddo 1 sano iyo dheeraad ah uu la shaqeeyey madaxweynihii iyo mas-uuliyiintii u arkayey inay yihiin mucaarad mayal adag kasoo waxqabadka uu ku xusay xaashiyaha uu shalay isku rusqeeyey dadka yaqaana ninkan waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay nin leh xirfad shaqo oo sare taas oo wax weyn ka tartay mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda Hargeysa sida aynu sheegnay iscasilaadiisu waxa ay ka tagaysaa weydimo furan waxaase muuqata inuu siyaasad ahaan soo fuli doono mimbarka mucaaradka isagoo oo ka soo dhex dagaalamaya xisbiga uu ka tirsan yahay ee kulmiye dhanka kale xukuumadda madaxweyne Cirro oo xajin iska dhowra isla markaasina dadaal xooggan ku bixinaysay in siyaasadda dibadda iyo gudaha labadaba ay wax weyn uga jirto xukuumadda iyo madaxweynahaba ictiraafkii dawladda Israa'iil ay siisay Somaliland ayaa dadaal xooggan ku bixinaysa bilihii la soo dhaafay iska mooska eedaha mucaaradka iyo dalool kasta oo saqiirin kara guulahaasi taariikhiga ah hase yeeshee in 2 xubnood oo mas'uul ka ah hay'ado muhiim ah ay muddo sanad gudaheeda shaqada isaga tagaan si iskooda iyaga oo tirsanaya inaan loola macaamilin sidii ay ahayd inay u gutaan waajibaadkooda shaqo waxa ay muujinaysaa inay jirto isfaham la'aan u dhaxaysa hay'adaha dawladda iyo xafiiska ugu sarreeya dalka